السلام عليكم سو dhawaada asxaabi waa tahay daawadayaal barnaamij cusub ayaan sii deynaynaa maanta waxa uu ku saabsan yahay barnaamijkeenu darafka koonka inta la ogyahay mucjisada iyo awoodaha Allah subhanahu wa ta'ala sida uu soo sawiray markabka fidaa'iyaadka NASA iyo teleskoobkooda kala ka qayb qaada safarkan dheer oo bal soo ara koonkan cajaa'ibka badan ina mari safarkan koonka cirifkiisa waa intay laayimka la ogyahay rubama ay dhici karto intaas inuu ka sii wan yahay xaqiiqaduna ay tahay inuu ka weeyahay in la mida inta imika la ogyahay alla ayaa soog safarkana wuxuu ka bilaaban doonaa meeraheena dhulka oo ah meeraha noloshu dushiisa ka jirto sekanka xawaaraha iftiinku waa 300 kilomitir daqiiqadii xawaaraha iftiinku waa 18 milyan kilomitir halkii sano ee xawaaraha iftiinku waa 946 trilyan kilomitir hada ma aha bilyan waa trilyan kilomitir qorraxdeena oo malaayiin marka weyn inta uu leeyahay dhulkeena ma isweydiisay intuu inagu soo gaadhay iftiinkeeda waa 8 daqiiqo oo qura xawaaraha iftiinku waa waxa ugu xawaaraha dheereeya koonka dushiisa ma jiro wax ka dheereeya xawaaraha ayaasha sagaalka ee loo yaqaan bahda midaysa qorraxda ee kala ah Mercury oo xagga qorraxda xiga Venus oo ka labaad qorraxda xiga Earth oo dhulkeena oo ka saddexaad qorraxda xiga Mars oo inagu sii xiga Jupiter oo ka sii dambeeya Saturn oo ka dambeeya kana sii qurux badan Uranus oo ka sii dambeeya Neptune oo ka sii shisheeya Pluto oo ugu dambeeya inkastoo hadda laga saaray bahda kulmsaacdeeda meerayaasha sagaalka waxa ugu weyn meeraha Jupiter waxa uu ka weeyahay dhulkeena boqolaal mar oo laba jibaaran bale kumanaan mar oo laba jibaaran meeraha noogu dhow ee Mars markabka fidaa'iyaadka waa inognahay xawaarihiisu inuu ka sareeyo xawaaraha diyaaradaha miiga ah wuxuu socon lahaa 9 bilood waa meeraha imika la filayo inay dushiisa nolol ka jiri karto Jupiter oo ka sii shisheeya Mars waxay markabka fidaa'iyaad ku qaadan lahayd 14 sano Saturn waa ka sii fog yahay dhowr jibaar ay ku qaadan lahayd Uranus sidoo kale waxay ku qaadan lahayd waqti badan Neptune sidoo kale Pluto fogaanshaha cadceedda uu ka fog yahay darteed heerkulka qabigiisu waxa uu gaaray minus kumanaan ah oo ka hooseeya eber inta sagaalka meere xaka weyniga dhulkeena wuxuu noqon doonaa kan shanaad ee xaka yaraanta ah taa macnaheedu waxa ka weyn 4 meere oo kala ah Jupiter Saturn Uranus iyo Neptune waxa ka yar Pluto Mercury Mars iyo Venus marka Jupiter loo fiiriyo meerayaasha kale oo dhan wuxuu ka weeyahay dhamaantood xataa hadii la isku wada daro cadceeduna Jupiter waxay ka weyn tahay kumanaan mar oo laba jibaaran subhanallah Allah ayaa soo cadceedu malaayiin kilomitir noo jirta dhulkeena oo shucaaca iftiinkeedu waxa uu nagu soo gaadhaa 8 ilbaqsi heerkulka marmarka qaar gaaray 50 centigrade weynigeedu ma yara subhanallah markabka fidaa'iyaadka hadii cadceedda dusheeda cirif ilaa cirif u kala go'is oran lahaa waxay ku qaadan lahayd kumanaan kun oo sano subhanallah Allah ayaa soo Pluto oo ah meeraha ugu dambeeya meerayaasha bahda cadceedda kulmisay kaasoo hadii markabka fidaa'iyaadku xaqiisa u go'is oran lahaa waxay ku qaadan lahayd safar aan ka yaray 30 sano subhanallah Allah ayaa soog marka intaasoo koon iyo khalqi Ilaahay abuuray xidiga ugu yarna uu balaayiin marka uu yahay cadceedeena sidoo kale waxa jira balaayiin meerayaal ah oo kuwada ugu yar balaayiin marka uu yihiin cadceedeena Allah ayaa soog hadii ayna rumaysnayn waxa ugu weyn koonka ay tahay cadceeda waxaan arki doonaa balaayiin mujarrado xidigay meerayaal ah oo wada dhalaalaya kuwaas oo cadceeda iska dhaafa xataa bahda cadceedu kulmisa masaafada ay ku fadhiyaan oo halkii xidig ama meero ka weyn yahay xidigaas ay sheeganana waa xidiga shicraa qiyaasaha cirifka koonku waa meel ku siman fogaanta dhulkeena ku jirta 13.7 bilyan years oo xawaaraha iftiinka ah xusuuso halkii sano xawaaraha iftiina waa 946 trilyan kilomitir bal ka wara 13.7 bilyan years masaafadaas xisaabteeda sidee lagu qori karaa ma aha millions waa billions waa 13.7 bilyan years markaas baa waxa dib ugu soo laaban doontaa dhulka oo aad arki doontaa halka aad koonka weyniga badan ka joogto intani waa samada koowaad iyo hoosteeda bal ka waran 6 samee kale iyo carshiga weyn ee Raxmaanka halkeebaynu inagu ka joognaa koonkan Ilaahay kii daawada barnaamijka waar hooy cibaadada Rabbi adiga uunbay ku anfacaysaa u noqo Rabbiga u toobadkeen wixii alla ku furay dhammaan sideeda u qaado daawada maanta barnaamijkeenu inta inoogu joogo fadlan fiidiyowgan dadka ka like saar haddaad nagu cusubteen subscribe saar oo nagu soo biir waa noo farxad si ay dhiirigelin noqoto like noo saar والسلام عليكم.